markaan waxay la soo dhaweystaan maama Xakiima kamida kalkaal group maadaama dadka hadda maanta meeshan fadhiyay gabdhaha u badan yihiin waxaan rabnaa su'aal runtii aan filayo gabdho badan inay maskaxdooda ku jirto inaan weydiiyo marka in waxbarashadii la sii wato in shaqaale la noqdo in maxaa la shaqo la abuurto iyo barbaarinta caruurta oo runtii aan dareemayno inay hawl weyn tahay arintaas la isugu manage gareyn karaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو جوه رئيسة إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا سكله السكاية كأنه أنا قانا بتقبنا عفما تقبنا أنت أسكدي موضوع عن وموضوع مهم دومركو ومالت تاسك وحلي هذا وعدد شقة بدن نك رجع وحالجيا وإنه هالشقة كشقة أما بيزنس وأبورتو بيزنس كيسة سمستو أما أمير شقة كقبت لكن qofka dumarka waa ka duwan tahay ka soo bilow guurka iyo ilmo dhalida iyo korinta shaqo badan oo waxa jira ayada ay gaar la tahay yaani cunugan inay caloosha ku qaado ay dhasho waa hawl ayada u taala 9 bilood oo aad u culus oo marka ka dambaysa soo cuslaanaysa shaqadaas ay qabataa waa qaban kartaa shaqooyin badan oo kale ay qaban kartaa hal mar ay waxay isku qaban kartaa shaqooyin badan مثلاً أنا هذا هو يعني هاي الحمد لله المان دلي وأنا شقينا يا مركان دلي وإحنا وابرنا هي لو هذا هو أسكول شقق يحبرشة هي المان دلي تصدق على أسكول ماشي أنك شقي جري وحيابا يعني هذا وحن رباط وصالة سوشيال ميديا وإنكارية هذا الكي يهور كين دونا لكن وأنا أشياء قبله جواربا waxaan sameey jiray waxaan lahaa boorso ii gaara ilmahayga markaan dhalay waxaan ku yiri gabadh ii qabanayso hooy hayga siin caanahan gasaca ku jira uma rabo inay iga cabto iyo caano xoolaad midna waxaan rabaa caanahayga bas inaan siisto cunugteeda dadka dhan ila yaabeen waqti dheer shaqeynay shiftiya shaqeynay mar adnayd shaqeynay mar afternoon shaqeynay afternoon markaa shaqeynaysa duurka bixi habeenka saqdhaxa imaanay markaa naad shaqeynaysan habeenka waxa bixi fiid hore subaxii 2 saac gurigaaga imaanay ama 8 subaxnimo marka waqti dheer adiga cunugaaga ismoogaanaysan see caanaha kaliya ugu noolaan karaa ani waxaan rabaa inaan sugo arintaas laana baxthiyaan sameeyay markaan wax baranayay in la sameey karo cunugana ay u fiican yihiin caanaha hooyada kaliya fa waxaan gatay kit ilmahayga u gooni ah oo boorsadeeda ka baxsan waxaan ku ritaa dhalooyinkayga iyo mashiin yar waxaan sameeyaa waqtiga shaqada inta kama shaqeeyo waa shaqo waqti lagu kala xisaabtama bareegaaga waxaad leedahay nus saac 31 daqiiqo ma laga yeelay mid kale ku sugayso oo ayadana bareeg qaadaleed shaqo ka bedesho intaan bareeg qaadanayaan sameystaa koobkayga kafeega ah iyo xabadiisa sinjiwiijka aan soo qaataa meesha qolkaan ku aan caanaha iskaga saari lahaayaan la tagaa intaan waxa cunayaan gabadheedii yartaas sawirkeeda hortayda dhigtaa markaasaan caanaha iska soo saara dhalooyinkan ku shubtaa dhalooyinkayga markaan ku aruursado dhalooyinkayga markaan ku aruursado ma sha Allah tabarakallah markaan dhalooyinkayga ku aruursado talaajada kafeega aan gashanay alaabaheen aan ku xareystaa markaasaan markaan gurigayga u noqonaa gaariyaan wataa caanaygaan sii qaataa kidkaygaan ku sii ritaa qabowga gabadha waa la ballamaa waxaan dhahaa hooy caanaha lama karkariyo caanaha dabka lama saaro laakiin intaysan ilmaha yarka ooyin soo bixi ha diiraan xogaa yar banaanka kadibna saas iigu sii 6 bilood exclusive breastfeeding wax la dhahaan baranay oo aan aad iyo aad runtii u rumaysnay waana ku fuliyay waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iiday dhaqaale ahaan wax badan hatta ilmaha xanuunsan oo dhakhtarka loola noqdo iyo xanuuno maanaan arkin marka qofka dumarka waa qaban kartaa wax badan ay qaban kartaa saas oo ay tahay koorsiyan qaadi jiray oo aadi jiray laan hadaad aqoontaada hormari weysid ma sii shaqeynaysid qof adig ka hormarsanaa shaqada la geeyna marka waa inaad is hormarisaa oo koorsooyin qaadataa si aad isu dhisto mid kale laysanaad ku shaqeynay laysankaagan waxa laga rabaa intaas oo saacadood oo ah continuous education inaad soo sameysay hadaadan soo sameynin laysanka ma lagu cusboonaysiinaayo iqaamada wadanka islaamiyada ay ku joogtidna way ka dhacaysaa marka waxa u baahan tahay inaad is diyaarsid si ay fursadaas aad u sii haysatid intaas oo dhan waa sameey jiray وانا شقي جري هبينكي مركان مادن عنقتيدان هيسي جري الماغو دhan waa korsan kartaa laba shay ay u baahan tahay bas hoosta ka xariiqa laba shay ay u baahan tahay ina u diyaar garowdo
marka ugu horeysa waa inaad go'aan gaartaa fa idaa cazamta fatawakkal cala allah go'aan inaad gaartaa u baahan tahay inaad shaqadan qabataa waa qaban kartaa kadibna ilaahay aad kala saartid oo aad noqotid qof ilaahay ku xiran oo awoodiisa aan isku halaynin laakiin awoodda ilaahay ku tashada waataa xasuusataan xadiis ah wada taqaaniin nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhiisa Faadima Zahra ay tiri aabo ii keen ciidan ii caawiye guriga uu dhahay ilaahay xus 33 daqiiqo subxaanallah walxamdulillah walaa ilaaha illa allah wallahu akbar dheh adu baroobay hadda adoo jikada ku jira oo marti ku imaanayso oo raba inaad qado nooca karisid ciidan badan aan haysanin intaad shaqadaysa ilaahay xus ilaahay xus ilaahay uu ku maceynaa uu ku fududeynaa waana ku sahlaan mana ku ceeboobaysid waxa aad qabanaysid marka waxay kaaga baahan tahay go'aan inaad gaartid tan labaad waxaad u baahan tahay shaqada aad qabanaysid sida dakatirada maanta oo dhan ay sheegeen ikhlaas alla ka cabsi waliba markaad shaqaalo noqoto oo dad u shaqeynaysid waxaad u baahan tahay ha fiirin qofka u shaqeynaysid ilaahay fiiri waxa aad qabanaysid ilaaha kor ka fiirin haday shaqadaadu ikhlaas tahay الذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هدات سسحة نفط هذا الشيطان كأولاد دريتين أو أشقال سسحة أقبتين إلهي وكوف ذينا سبحانه وتعالى بعض بعض هاي وحبر الشيء ماشى اللي جوجو شيء هذا ما ويل كسر عنت اللي جوا هايا كورسي بدن عكس على سيد بروفيسور كويري أونلاين هايجو الدين هايجو معمول هايجو محنك ده عفمات ورمرينا وحول بقى هذا معلم تاي وحكي سكور ملي هالكاس على كينا لكن بليز فيسبوك يتيك توك وحبا لغا مكيانو وحبا كمهليسي يوتيوب مسلسل تركي وحما كوشيغا وحا كوشيغايا وحاد براتي او كو انفعايا اديغا بالكان marka dhinaca kale aan u gadino aan ka faa'iideysano wax badan oo nabara xataa sida waqtiga loo manage kareeyo waqtigaaga waa manage kareysan kartaa quraanka xafidi kartaa adoo shaqaale ah oo maxaan ku dhahay ilmo heesta oo welina quraanka hadaad fursad u heli marka ay raadin inaad baratid ama uu kaalumay waa muraajacay kartaa wax badan aad qaban kartaa inaad laakiin ikhlaas la timaadid oo waxa aad qabanaysid aad ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad hor dhigatid aqoontaadana inaad kor u sii qaadid markaad shaqo raadinaysid tababarada badan waa inaad qaadataa oo kooraska adiga aad rabtay inaad ku shaqaysid la xiriira marka waxaad u baahan tahay markaad shaqo qaadan ma raadinaysid oo CV-gaaga qoraysid ha ku qorin beenta la qora iyo beenta afka laga sheego tan la afka laga sheega fudud midda aad qortaa waligeed way qornaanaysaa marka CV-gaaga been ha ku qorin waxa runta ah ilaahay kugu ogyahay sheeg sida ay kula tahay oo saxda oo aad taqaanid u sheego ha ku qorin CV-gaaga ha iska halaynin ilaahay hortiisa subxaanahu wa ta'aala waxaan arkaa qolada caafimaadka neersiga iyo umulisooyinkaan arkaa in badan oo u imaada inay bartaan inay practice ku sameeyaan meeshaan ka shaqeeyo qofka wax badan markay imaadaan ko orientation aan siinaa inay wax isbaraan ay wax qabtaan waxa ay qabanayaan waxna way qaban karaan waa u xor waxna waxay u baahan yihiin inaan anaga la aragno ama aysan qabanin laana waxa laga yaabaa inay bukaanka dib nooga geystaan marka waxaad arkay marar badan miiski aan ku shaqeynayna qaarkood ku fadhiya miiska ay ku kor fariisanay ama mararka qaar waa wiil miisku ku kor fariisanaa halkan waa lagu shaqeynayaa adigana halkaas ku fadhida ama mobilkiisu iska haystaa maanta dhan waa huba su'aasha daayay oo doctor wasiir baaf idin weydiinay oo aha wax ma laga faa'iido markii hore si sax ah u jawaabtay waxba laga ma faa'iido laakiin asaga ku qanci waay waa run laana boqolkiiba 90 markay tagaan meesha practice-ka mar hadaan mushaar la siinaynin mas'uulna ayaga aysan ahaynin waxba ma qabtaan hadaadan wax qabanina waxba ma taqaanid waxa aad taqaanaa waa waxa aad qabatay oo gacantaada ku samaysay marka waxaan idinku dhiirigelinaa hadaad tagtiin meelaha shaqada inaadan sugin casumaad kaalay qabo iyo kaalay baro iyo kan isku day in lagu dhaho sugin adiga inaad taagantaa laga rabaa volunteer aad tahay ma qabtaa ma lii ogolaan karaa aan sameeyo maxaa iga qaldan in lagu saxo inaad diyaar u noqoto qofka marka aan aragno inuu anaga nooga horeeyo shaqada qaar badana xataa naga og shaqada waxa ka socdo anagu aanan ogeyn ayagu in badan naga og qofkaas oo kale marka aragtay inuu meeshaba kaaga horeeyo waad ku qasbantahay inaad shaqaalaysiisid laakiin qofka kursiga miiska kaaga ku fadhiya maanta dhan ma shaqaalaysiinaysa muddada loogu talagalo markay dhamaato xaalada iska baxeedo marka ikhlaaska kelmadda hadaayay aan dhahayay marka la idinku celina
ikhlaaska aan barano inaan si sax u shaqeyno ikhlaaska waxa kamida shaqo aan lagu dirin inaad aragtid adiga qof wax ku dirsaday lacag ku guleeshii wixii uu ku dirsaday waxaan ahayn waa inaad aragtaa wixii ku dirsaday waxba ku wareegsan oo hadaad samayso tan aad qabatay qurxinaysa kullama aad si ikhlaas u shaqaysid irsaaqadu waa qorantaas u Sheekh Cabdilxay noo sheegay Ilaahay wuu ku siinaa ajirkaaga adduunka iyo aakhirada waa heli gabdhaha neersiga waxaan ku dhahaa qof bukaana si sax ah u keer gareeya Ilaahay wuxuu abaal uga dhigaa inuu xanuunka cudurka qofkaas ay inuusan isaga uusan ku salladin subhanallah yani waa aragnay khibro qof kasta oo bukaana oo dhiban oo xanuun haya hadaad dhibaato u geysato ciqaab badanaan aragnay Ilaahay inuu ku rido qofkaas cudurkaas meesha bukaanku jiifay oo maalin jiiftaasana marka ikhlaaska in la barto shaqo la'aan ma jirto shaqaysad la'aan jira taas waa taas kale adoonka raali bas arintaana AI-ga ah oo very really important oo very yani helpful ah waliba markaad wax qoraysid aad iyo aad u fiican ku caawinaya waa faa'iido la soo saaray dada ku maxay sheeg juhdigooda iyo aqoon galiyay oo soo alifay oo ku soo bisleeyay bas qaabkaad u cun lahayd inaad baratid waxa uu ku soo saarayo iska aqri copy and paste hadhiin iska aqri kadibna iska sax meelaha adoon u baahnayn iska saar kalimaadka aad rabtid gasho waliba uu ka caawinaa isbeenku ka caawinaa wuxuu ka caawinaa kelmadaas dhowr kelmadood oo kala isticmaal karta aad iyo aad u mufiidiya laakiin inaad baratid sida loo isticmaalana aad taqaanid arinta oo wadaad doctor ku dhaanko ku sii adkayna anigana aad u mahadsan